waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka. Halkani waa Maalinle TV. qodobada aad daawad doontaan waxa qayb ka ah dowladda Israa'iil oo markii ugu horeysay ku dhawaaqday in si degdeg ah loo dhisi doono isbahaysi ballaaran oo ka soo horjeeda isbahaysiga dhawaan ay ku dhawaaqeen dalalka Saudi Arabia, Turkiga iyo Pakistan. haddaba waxaynu kula wadaagi doonaa isbahaysigan afarta dal ee si degdeg ah uga soo muuqan doona iyo Somaliland oo la sheegay in isbahaysigan muhiimad gaar ay u leedahay. haddaba waxaynu kula wadaagi doonaa isbahaysigan dalalka qaybta ka ah halka lagu dhisi doono iyo sidoo kale waqti xaadirkan la filayo in madaxdooda ay si degdeg ah isugu yimaadaan. haddaba isbahaysigan dalalka ugu muhiimsan ee ku jira ayaan sidoo kale warbixinteena ku eegi doonaa. qodobada kale ee xasaasiga daawad doontaan haddii web idmo waxaa ka qayb noqonaya ciidamada Itoobiya ayaa gebi ahaanba baneeyay fariisimo ay ku lahaayeen koonfur galbeed ee Soomaaliya, iyadoo ay soo baxayaan in Itoobiya gudaheeda buuqa ka taagan darteed gebi ahaanba ay dhabarka u aadinayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Culusow iyo guud ahaanba koonfurta oo waqti xaadirkan wajahaysa xaalad hubanti la'aan kadib markii xitaa lagu dhawaaqay in howlgalka AUSOM gebi ahaanba uu soo gabagaboobay, Mareykankan uu dhaqaalihii ka jartay. haddaba warbixinteena ayaan ku eegi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee arintaasi ku saabsan. qodobada kale ee xasaasiga daawad doontaan haddii web idmo waxaa ka qayb noqonaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac u doortay in uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo bedelaya Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo horay u noqday madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. doorashadii maanta dhacday codadka lagu guuleystay natiijada la sii ogaa waxay ka dhigan tahay aan kula wadaagi doonaa xilli la leeyahay doorashadan dowladda Turkiga ayaa markii horeba ka shaqeynaysa. qodobadaasi wixii kale ugu soo kordho ayaa daawad doontaan haddii uu eebay idmo, balse marka hore soo dhawaada laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibada qayb ka noqo saaxiibada ku xiran Maalinle TV. waxaynu ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 50,000 oo subscribe kaliya. safarkeena adiga ayaa ka dhimanay sulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin. waagaag aynu ku bilaabana barnaamijkeena. warbaahinta dalka Israa'iil ayaa markii ugu horeysay toos waxay ugu waramaysaa in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka socda xafiiska Netanyahu, kaas oo lagu unkayo ama lagu dhisayo isbahaysi ballaaran oo cagsi ku ah isbahaysigii dhawaan ay ku dhawaaqeen dalalka Pakistan, Turkiga iyo Saudi Arabia. isbahaysigan Israa'iil walwal ay ka muujinaysaa hore ayaana waxa u socda dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la doonayo in isbahaysi Israa'iil dhankeeda ay ku samaysato iyada iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo dalal kale oo Somaliland ay ku jirto. waxaana isbahaysiga dhawaan ay ku dhawaaqeen Turkiga, Saudi Arabia iyo Pakistan ku biiri kara sida wararku ay tilmaamayaan dalal ay ku jiraan Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti. si la mid ah waxa isbahaysigan ku biiri kara dalal badan oo Islaam ah sida dalka lagu magacaabo Bahrain, Kuwait, Qatar, Masar, Syria iyo dalalka la midka ah. waxa wararku ay tilmaamayaan in Israa'iil haatanba ay soo gabagabaysay wadahadallada ku aadan dhismaha isbahaysigan cagsiga ku ah kan Pakistan iyo Sacuudiga ay horboodayaan iyo Turkiga. waxaana wararku ay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 dal isbahaysigan lagu bilaabi doono, waxaana ay kaliin Imaaraadka Carabta, Giriiga, Qobrus iyo Somaliland, iyadoo la leeyahay Somaliland ayaa ah tan ugu muhiimsan ee isbahaysiga. Somaliland waxay ku taallaa buuqad istiraatiiji aqoonsi ayana ka haysataa dhanka Israa'iil oo isbahaysigan horboodaysa. sidaas darteed waxay u badan tahay ayaa la yiri in madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu gaaro magaalada Abu Dhabi ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo ah halka la filayo in looga dhawaaqo isbahaysigan ballaaran. tani oo ka dhigan in gebi ahaanba ay noqonayso fursad xooggan oo ay Somaliland haysato. wararka qaarkood ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in isbahaysiga kolka 4 wadan oo Israa'iil ay horboodayso oo wadanka shanaad ah lagu dhawaaqo ay iyana ku soo biiri karaan isbahaysigan dalal kala duwan oo ay qayb ka yihiin Indiyana caadiyan waxay bilcagsi ku tahay dhanka iyo dalka lagu magacaabo Pakistan, oo Pakistan halkii aado ayay Indiyana cagsigeeda aadaysa. tani oo ka dhigan in gebi ahaanba isbahaysigan uu noqon doono mid si weyn ula hardami kara dhanka iyo dalka lagu magacaabo
ama si weyn ula ardami kara isbahaysiga kale ee Pakistan ay ku jiraan iyo Turkiga iyo dalalka Islaamka. waxaana leeyahay dalal dhowr ah oo Morocco ay ku jirto iyo India iyo waxa la filayaa dalal kala duwan oo Argentina xitaa ay qayb ka tahay in isbahaysigan ay ku soo biraan. Isku soo wada duuba tani waxay noqon kartaa fursadii ugu weyneed ee Somaliland ay hesho iyadoo oo la leeyahay waxa Cabdiraxmaan Cirro uu haatan isku diyaarinaya in uu safar u aado dhanka iyo magaalada lagu magacaabo Abu Dhabi dalka Sultanka Imaaraadka Carabta halkaasi oo diyaarinta isbahaysigan lagu guda jiro. qodobkaas intaas ayaan ka gudbaan in ciidamada Itoobiya ee qaybta ka howlgalka Midowga Afrika ee USOM ee Soomaaliya ayaa 8 bishan si rasmi ah u wareejiyay taliskoodii magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay iyagoo amniga magaaladaasi ku wareejiyay ciidanka militariga Soomaaliya. munaasabad ka dhacday saldhigga ciidanka Itoobiya ee degmada Buur-Hakaba ayaa waxaa maamulka iyo mas'uuliyadda amniga si rasmi ah ula wareegay taliska qaybta 60aad ee xoogga dalka kuwaasi oo si wadi doona sugidda amniga magaalada Buur-Hakaba oo ah deegaan muhiim u ah gobolka Bay. warsaafad ka soo baxay taliska ciidanka ee USOM ayaa lagu sheegay in talaabadan ay qayb ka tahay qorshaha amniga dalka ugu wareejinayaan ciidamada Soomaaliya kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay socday. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in wareejintan ay astaan u tahay tallaabo kale oo muhiim ah oo lagu xoojinayo arrimaha amniga oo ay Soomaalidu hogaaminayso iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. saldhigga Buur-Hakaba oo haatan ay la wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo 2014 waxaa ka howlgelayay ciidanka Itoobiya halkaasi oo ay ka fulin jireen howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab. talaabadan ayaa sidoo kale waxaa loo samaynayaa dhaqaale xumida haysata ciidanka ee USOM kadib markii Ameerikaanku uu jartay lacagihii uu ciidamadan ku taageeri jiray. tani waxay keentay in gebi ahaanba xaaladdu ay noqoto mid faraha ka baxda sidoo kalena ciidanka Itoobiya gebi ahaanba isaga huleelaan gudaha Soomaaliya. culaysyada ka jira sidoo kale gudaha dalka Itoobiya oo TPLF ay ciidamada Itoobiya dhibaato ku haysa ayaa waxaa leeyahay qayb ayay ka tawaarintan way keeni kartaa. qodobkaas intaas ayaan ka gudbaa dhinaca kalena Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo loo yaqaan wasiir madaxa furan sidoo kalena wiilka Erdogan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta loo doortay gudoomiyaha rasmiga ah ee golaha shacabka baarlamaanka dib doorasho ka dhacday xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Jaamac ayaa waxa uu ku soo baxay cod aqlabiyad leh waxa uu helay 142 cod sida uu shaaciyay gudoomiye Saadiye Yaasiin oo ku dhawaaqay natiijada. sidoo kale waxaa musharaxiinta ama musharaxii la tartamay uu helay 30 cod. tirada doorashadan ayaa waxay ahayd mid la sii ogaa waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in arrintan uu si weyn kaga shaqeynay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo Somalistan ka dhigay Turkiga maadaama Turkiga haatan u muuqdo wax kasta oo ku saabsan Soomaaliya in isagu gacanta ku hayo. wasiir Jaamac madaxa furan waa uu gacanta ku haya malafka shidaalka Soomaaliya kambada iyo guud ahaanba wax kasta oo khuseeya dowladda Erdogan waxyaaba ay ka wado magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya. guud ahaan intaas ku soo gabagabeynaya wararkan ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya caalamka dhamaadka diyaar soo gaarto waxaan ku xusuusinayaa inaad janaalka subscribe inoo saarto qaybnaad ka noqoto saaxiibada nagu heran waxaynu ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn konta kuna subscribe halkani waa Maalinle TV nabadgelyo.